kusoo dhawaada kow Somali Media waa soddonka bisha Rabiicul Awwal sanada 1447 taariikhda hijriyada waa subaxnimo isniina miilaadiyaduna ay ku beegan tahay 22ka bisha sagaalaad sanada 2025 qodobada ugu waaweyn barnaamijkeena aroornimo saake waxa kamid ah gudaha Israa'iil walwal iyo qalqal daran ayaa ka taagan aqoonsigii dawladda Falastiin ay ku dhawaaqeen qaar kamida dawladaha ugu muhiimsan xubnaha dawladaha qaramada midoobay waxa laga saaray kulan ay yeesheen Netanyahu iyo qaar golaha wasiirada kamida wasiiradii xagjirka ahaa Smotrich Ben Gvir saaka madax ayaa dhulka loo diray isbedel weyn ayaa halka ka taagan barnaamijka aad ku maqli doontaa qodobada sidoo kale barnaamijkan idinku heynayana waxa kamida Sacuudiga oo soo saaray digniintii ugu cuslayd oo uu abid Israa'iil dul dhigo hawada Israa'iil waa laga xirayaa ayuu yiri diyaaradaha Israa'iil waa laga xirayaa hawada Sacuudiga talaabooyin kale ayaan qaadayna ayuu leeyahay Maxamed bin Salman maxaa isbedelay macluumaad arinta ku saabsan ayaad maqli doontaa qodobada sidoo kale aanu barnaamijka idinku heynayana waxa kamida koonfurta Lubnaan qaybo badan oo kamida ayaa gubanaya gaar ahaan magaalo muhiima oo ku taala koonfurta dalkaasi oo leedahay Bint Jabal macluumaad ku saabsan weerarkii ugu dambeeyay Israa'iil ay u geysatay Lubnaan ayana wad maqli doontaa qodobka ugu dambeeyana barnaamijku waxaan idinku hayaa siyaasiyiinta xisbiga dimuqraadiga ayaa si rasmi ah u sheegay in Mareykanka hadda uu qarka u saaran yahay inuu noqdo dal dictatorship ama keligii taliyo uu ka taliyo Trumpna ay ku sheegeen in uu awoodii keligii isticmaalaya oo uu ku xadgudbaya isla markaana uu xirayo siyaasiyiinta iyo dadka ka soo horjeedo wixii ay dadka uga digaanba keligii talinimo maanta iyaga ayaa dhex fadhiyo waanu isla soo dhawaada mar kale magacaygu waa Mustafa Ali halkana waa kow Somali Media aynu ku bilowna barnaamijkeena aroornimo saakay gudaha Israa'iil waxa ka taagan qalqal iyo isku dhaxyac aad u daran kadib markii ay soo baxday in dawladaha xubnaha ka qaramada midoobay 193 dawladood maaragtay xubnaha qaramada midoobay ay hadda inta Falastiin aqoonsan ay noqdeen 153 macnaheedu ay tahay kaliya 30 dawladood ayaa ka dhiman aan ilaahay 40 dawladood kaliya ayaa ka dhiman inay Falastiin aqoonsadaan shalay oo kaliya waxa reer Falastiin aqoonsaday 11 dawladood oo ay ku jiraan Malta, Britain, Luxembourg, France, Australia, Armenia iyo Belgium macnaheedu waxa ay tahay kuwa kale iyo qaar kale oo soo socda oo dhammaan sheegay in Falastiin ay u yihiin agtooda ka tahay dawlad rasmi ah oo macnaheedu ay tahay in safiiradooda u dirayaan dawladda reer Falastiin loo soo dirayo waxay arintani ku soo aaday xilli Netanyahu iyo kooxdiisa ay qorsheynayeen in dhulka reer Falastiin inta hartay ay xoog kula wareegaan aadna ay uga soo horjeedeen aqoonsiga dawladnimada reer Falastiin taas oo siin karayso in haddii Israa'iil ay isku daydo dhulkaas inay la sii wareegto qaybaha haray ay la wareegayso dawlad dhan dhulkeeda haddii markii hore dawlad aan loo aqoonsadeen dawladihii vetoga ama codka diidmada qeexan haystay ayaa waxay aqoonsadeen intooda badan marka laga reebo Mareykan waxay aqoonsadeen in yar in Falastiin ay tahay dawlad haddaba maxaa gudaha Israa'iil ka dhacay Netanyahu wuxuu kulan degdeg isku yeeray golihiisa wasiirada oo ay ka maqnaayeen kuwa xagjirka ah si xal loogu helo xiisadan soo tarayso iyo siyaasadda Israa'iil ee sii damaysa iyo midda Falastiin ee sii ifaysa kulankan ayaa la sheegay inay daarnayd sidii looga jawaabi lahaa aqoonsiga dawladaha Britain, France, Canada, Australia ay ku dhawaaqeen inay aqoonsadeen dawladnimada reer Falastiin haddaba Netanyahu ayaa la sheegay in wasiirada aan xagjirka ahayn kulankaasi uu kala hadlay talaabo diblomaasiyadeed iyo dhaqdhaqaaq la qaado iyo wixii laga sameyn lahaa haddaba maxaa looga saaray shirkaas Smotrich iyo Ben Gvir oo golaha wasiirada kuwooda ugu muhiimsan Netanyahu kamid ah Ben Gvir iyo Smotrich markii uu soo baxay dhawaaqa ku saabsan in la aqoonsaday dawladda Falastiin waxay isku dayeen inay uga faa'iideystaan in dhulka reer Falastiin inta hartay gaar ahaan annexationka la wareegitaanka ama xoog ku haysashada daanta galbeed in la sii xoojiyo oo ay markaa u kaashadaan ciidamadooda iyo cid walba ay fursadan uga faa'iideystaan
laakiin Netanyahu oo u muuqato qabsashada dhulalka iyo weerarada uu sii waday inay u keeneen dib u dhac iyo khasaare kale iyo qaab kale oo ka duwan qaabka ay rabaan Ben-Gvir iyo kooxdan rabay inuu u qaabilo ayaa waxa la albaabku ka soo xirtay Ben-Gvir iyo Smotrich oo macnaheedu ay tahay loogama yeerin shirkaas lagama casuumin tani waxa la yiri waa tallaabo culus oo muujinaysa sida golaha maamulka Netanyahu wasiiradiisa ay u kala daadsan yihiin kalsoonida aad u dhimatay oo ay u liidato xilli dagaal halisa ay ka wadaan Lubnaan iyo Falastiin iyadoo Falastiiniyiinta hadda lagu waramayo maalintii ugu yartaay kooxda Netanyahu inay ka dilaan dadka reer Falastiin ugu yaraan 60 qof mararka qaar konton laakiin qiyaas ahaan waxa la tilmaalintii 60 qof dad yar maan maalmaha qaar dhowr boqol baa dhacdo su'aal celis marka 60 ilaa 50 qof ay maalintii dilaan maalmaha qaar ay 40 iyo 30 noqoto way jirtaa maalmaha ay ka yartaay laakiin maalinta ku xigta ayaa suurtagal ah inay dilaan 200 ilaa 150 qof iyo dadkii oo qax iyo dhibaato weyn ay dhex dhigeen taas oo keentay in adduunka looga aqoonsado waxa Netanyahu iyo kooxdiisa ay sameynayaan inay tahay xasuuq si kastaba ha noqotee kooxaha iska caabinta ayaa dhanka kale yana lagu soo waramayaa in ay sheegeen in Netanyahu iyo kooxdiisa maalmaha soo socda ay la kulmi doonaan dharbaaxo iyo weeraro aysan filanaynin dhanka kale Xuutiyiinta dalka Yemen ayaa sheegay inay iyagana sii wadi doonaan weerarada ka dhanka Israa'iil ilaa inta ay ka baxayaan dhulka reer Falastiin gaar ahaan marinka Gaza waayo walaalaha ay saaxiibada qiimiga loo qodobka meesha ayaynu ku dhaafaynaa waxa inoo soo socda Jack Schumer oo ah hogaamiyaha laga tirada aqalka Mareykanka gaar ahaan kuwa laga tirada badan yahay xisbiga dimuqraadiga iyo Hillary Clinton oo ahayd xogayihii arrimaha dibadda Mareykanka isla markaana ahayd musharax madaxweyne xaaskii hore Bill Clinton waxay leedahay Trump waxa uu wado waa halis maxaa Trump looga qeylinayaa barnaamijka ku maqli doontaa iyo talaabooyin uu qaaday oo adduunka dhan ka yaabiyay haddii markii hore dimuqraadiyad iyo xurriyad iyaga ay u dagaalami jireen maanta iyaga dhexdooda qaylo ka yeeraysa laakiin aan ku hormarno Sacuudiga Mohammed bin Salman ayaa waxa uu sheegay inuu qaadayo tallaabo adag oo ka dhana Israa'iil waa markii ugu horeysay Sacuudiga uu sidan Israa'iil digniin ugu diro waxay u muuqataa weerarkii Dooxa wixii ka dambeeyay isbedel weyn inuu ka dhacay aragtida Sacuudiga ee ku saabsan dhaqdhaqaaqa Mareykanka Israa'iil iyadoo markii hore Sacuudiga cambaarayn jirtay weerarka Israa'iil ay ka wada Gaza laakiin hadda maxaa dhacay Sacuudiga waxa ay qaaday tallaabooyin waaweyn oo ay ku jirto in heshiis ay la saxato Pakistan oo ah in hubka nuclearka Pakistan Sacuudiga lagu difaacayo haddii Sacuudiga la soo weeraro Sacuudigana uu galaya dagaal walba ay Pakistan gasho isla markaasna dalal kale oo muslimiin la filayo waqtiyada iyo maalmaha bilaha soo socda inay ku soo biiraan xulufada u dhaxaysa Pakistan iyo Sacuudiga haddaba saaka waxa cusub in Sacuudiga ay sheegeen Israa'iil hadday sii wadaan go'doominta Gaza si qabsashada dhulka reer Falastiin gaar ahaan daanta galbeed sida Jazeera ay qorayso Al Jazeera waxay leeyahay Mohammed bin Salman Israa'iil waxaan ka xiri doonaa hawadeena talaabooyinka aan qaadayno waxaynu jari doonaa xiriir walba iyo wax walba Israa'iil nagala dhaxay waxay meesha ka saari doontaa rajo walba oo keeni lahayd in xiriir uu dhex maro Sacuudiga iyo Israa'iil sadarteed waxa uu yiri waa inay degdeg u joojisaa qorshaha annexation-ka ama la wareegitaanka xoogga wareegitaanka dhulka reer Falastiin gaar ahaan daanta galbeed oo Israa'iil ay rabto gabi ahaanba in maamulka rayidka ee Mahmoud Abbas iyo waxa ka jiro dham inta laga saaro la hoosgeeyo maamulka Netanyahu oo Falastiiniinta dhulkooda ay saas uga baxaan ilaa hadda ay gaarsiiyeen in dadka reer Falastiin wax u dhigma visa inay ku soo galaan dalkooda dalkaaga iyo wadankaaga visa ku soo gal ay arintu maraysaa taas oo uu sheegay Mohammed bin Salman inay tahay waxa la sii eegan doonin tani waa midii talaabadii ugu horeysay oo Sacuudiga sheegay inay si degdeg u qaadayaan haddii maalmaha soo socday wax isbedeleen haddii marka hawada Turkiga laga xiray Israa'iil oo diyaaradaha Israa'iil ma mari karaan hawada Turkiga hawada Sacuudiga laga xiro macnaheedu waxa ay tahay waxay galaysaa go'aan go'doomin
dhanka cirka ah ayadoo xuutiyiinta dalka Yemen hore ay u geliyeen go'doomin dhanka badda ah taas oo uga dhigan dhaqaalaha Israa'iil inuu indhaha isku qabsanayo oo uu wajahaya khatartii ugu weyneyd taariikhdooda. Netanyahu waxa ay ku eedeeyeen kooxaha ka soo horjeeda ee mucaaradka in Israa'iil uu halis weyn geliyo oo jiritaankeeda ay maanta halis ku jirto marka la eego go'doonka dhaqaale midka siyaasadeed iyo xaaladda amniga ay maanta ku sugan tahay. waxayna sheegeen in Israa'iil maanta ay ka liidato 7 Oktoobar markii Netanyahu iyo kooxdiisa ay ka jawaabeen weerarkii ay soo qaadeen kooxaha ka dagaalamaya marinka Gaza. Waaya walaalaha ay saaxiibada qiimiga leh markaynu qodobada halka ku dhaafno koorintaynu galin Jack Schumer Hillary Clinton iyo Trump oo dictator noqday hogaamiye Afrikaana ayuu noqday baa leeyahay soo aha hogaamiyo dadka dimuqraadiyad meel looga yeeray ka taliyo. waan isla eegi doonaa qodobkaas oo sheeko cajiib ay ku jirto iyo koonfurta Lubnaan magaalo ku taala oo saaka gubanayso kadib Israa'iil weerar halis ay ku dhufatay qasaaraha halka ka dhacay iyo waxa ka taagan guud ahaan Lubnaan ayaynu isla eegi doonaa laakiin marka hore aynu ku yaraha kana walaalaha qiri doontaan. waxaynu soo gaarnay guntii gabagabadii barnaamijkeena aroornimo aynu ku bilowno labadan qodobka ugu horeeya. magaalo ku taala koonfurta dalka Lubnaan ayaa lagu waramayaa saaka inay gubanaysa magaalada Bint Jabal ayaa la sheegay in militariga Israa'iil ay weerar halis ah ku dhufteen halkaas oo la sheegay ilaa hadda inta la xaqiijiyay inay ku dhinteen 5 qof oo 3 kamid ah yihiin caruur. Israa'iil ayaa sheegtay deegaanadaas inay kamid tahay deegaanada ay Xisbullah gacanta ku hayso oo ay sheegeen in meel walba ay Xisbullah ku sugan yihiin inay la dagaalamayaan. xisbiga ayaa iyagan dhankooda sheegay in Israa'iil ay beegsanayso dadka rayidka caruurta iyo dumarka waxayna sheegeen inay dib u bilaabi doonaan duqeynta ka dhanka Israa'iil ayna duqeyn doonaan koonfurta anigaade waqooyiga Israa'iil halkaas oo horey weerarada Xisbullah ay ku keentay in kumanaan kun oo dadka Yuhuuda goobahaasi deganaa ay ka qaxaan laakiin markii weerarkii gaadmada ahaa lagu qaaday Xisbullah waxa ay keentay in weerarkii ay ku qaadi jireen magaaladaasi iyo dhanka waqooyi Israa'iil ay dib u hoos ugu dhacdo. haddaba Israa'iil waxa ay rabtaa in Xisbullah hubka ay dhigto gabi ahaanna ay ka baxdo siyaasadda iyo dhaqdhaqaaqa dalka Lubnaan laakiin Xisbullah ayaa sheegay inaysan taasi suurtagal ahayn iyadoo Israa'iil ay weeraro iyo gardarro ka wada deegaanada dalka Lubnaan. dowladda Lubnaan Xisbullah iyo dowladda Lubnaan Mareykanka iyo Israa'iil ayaa si wadajir uga shaqeynayo sidii Xisbullah looga saari lahaa siyaasadda iyo awoodda Lubnaan gudaha awoodda Lubnaan aan Xisbullah oo marka ay noqdaan kuwa aan wax saameyn ku lahayn gudaha Lubnaan laakiin Xisbullah ayaa sheegay inay taa aqbali doonin. si kastaba ha noqotee Israa'iil maalmihii la soo dhaafay waxa ay weerar halis ku wadaa gudaha dalka Lubnaan gaar ahaan koonfurta iyadoo hore burbur weyn u gaarsiisay qaybo badan oo ka tirsan caasimada dalka Lubnaan ee Beirut. waayo walaalaha qiimiga leh barnaamijka waxaynu ku soo xireynaa Jack Schumer oo ah hogaamiyaha xildhibaanada laga tirada badan yahay baarlamaanka dalka Mareykanka ayaa waxa uu ku eedeeyay Trump in uu yahay hadda kaliya taliye oo uu soo dhaafay xadkii dimuqraadiyadda iyo xurriyadda oo macnaheedu ay tahay in Trump amar uu ku siiyay hay'adaha cadaaladda iyo sharci fuliyaasha inay si gardarro ah am xooga u muquuniyaan siyaasiyiinta Trump ka soo horjeedo. waxa uu Jack Schumer ku eedeeyay madaxweyne Trump inuu adeegsanayo wasaaradda cadaaladda dalka Mareykanka uu adeegsanayo shakhsi ah si ay u fuliyaan qorshaha isaga uu rabo cidda ka soo horjeedana ay soo xiraan. waxaa sidoo kale eedantan mid lamid ah Trump u jeedisay Hillary Clinton oo siyaasiyad si weyn looga garanayo gudaha dalka Mareykanka. Hillary Clinton oo hore u noqotay musharax madaxweyne isla markaana ahayd xogeeyihii arrimaha dibadda dalka Mareykanka xilligii Barack Obama isla markaana noqotay 2 jeer musharax madaxweyne waxay ku eedeysay Trump inuu hadda yahay kaliya taliye oo sida uu rabo u dhaqmaya siyaasadii Mareykankana hog ka tuuray. hadda waxa uu Trump isticmaalaa erayo iyo hadallo aan gambasho lahayn waxa uu gaaraa go'aaman
ayuu muuqatay in keligii ay kasoo fushay, keligiis ka bilaabato, keligiisna ku dhammaato. Maraykanku waxa ay waqti badan ku eedeyn jireen dalalka Afrika iyo qaar kuwa Aasiya ka tirsan inay ka taliyaan madaxweynayaal ama madax keligii taliyaala. Hadda Maraykanka ayaa keligii taliye uu ka taliyaa sida iyagu leeyihiin. waxaynu ku soo xireynaa walaalaha qiimiga leh madaxweynaha dalka Suuriya Ahmed al-Sharaa ayaa waxa uu booqday Maraykanka, waxaana noqonayaa muddo dheer kadib madaxweynihii ugu horeeyay ee Suuriya ka socda muddo dheer kadib oo booqda Maraykanka, isagoo ka qayb galay shirka qaramada midoobay, isla markaana waxa uu kulamo la qaadanayaa madaxda Maraykanka ugu sareysa. Ahmed al-Sharaa waxa uu aad u dhaliilsan yahay sida ay Israa'iil ugu xadgudbayso gudaha Suuriya iyo sida bulshada caalamka ay uga falcelinayso dhibaatada ka taagan gudaha Suuriya. waayo walaalaha saaxiibada qiimiga leh wixii macluumaadka ay arrimaha ku saabsan ee ku soo kordhay gudaha xaaladda bariga dhexe barnaamijyada dambe ayaynu ku eegi doonaa tan iyo kulantin dambe. walaalkii Mustafa Cali oo idin leh nabadgelyada Ilaahay dushina. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.